السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا مقال أصب جنانك هداد كأصبت هاي سبسكرايب نوصار آد بدو ما سنتها سديد قف أو مدي مقنع وياهي حدي أي كوه الشيين كورن حال قف إني نفت دافية سورة ماشا كموغدا مدوا مرحوم منوا مرحوم سوغ وحان ديه كرا مرحوم سوغ سديد قف waxay ku xishiyeen in ay marxuumka nafta dhaafiyaan waa in ay dhaafiyeen horta dunida dil wuu ka dhacaa sidiisaba dilka meega u kala baxaa dilka wuxuu kala baxaa afar kan koowaad qof mase qof wuxuu ku dili karaa mase qof la dilay mase qof waxa dilay dilka wuxuu ku dhici karaa afartaa shay kow nin dagaal kugu soo qaaday aa iska dhicisay dilka labaad waa dilka kamac la yiraahdo mase maartay uma jeedin mase way igaga dhacday dilka saddexaad dilka weerarka la qaado haddaba ciidamadii iyo mase ciidanka markuu isku dhaco waxa la dhahaa dil saddexaad waa isagana dilka afraad wuxuu ku dhacaa adeegsada la dhahaa adeegsado mase nin la adeejiyey mase nin la diray mase nin maartay dirana oo qofkan u shaqaynaya dilka sidiisa wuxuu ku dhacaa afartaas hal mar aan ku celiyo dilka koowaad wuxuu ku dhici karaa kamac waxa loo yaqaano dilka saddexaad wuxuu ku dhici labaad wuxuu ku dhici karaa waxa la yiraahdo adiga qof inta isku dhacdaan mase adiga qof inta dagaal idin ka dhax bilowday as dishaan waa dil labaad kan man waa kamac man adiga qof ba isku dhacay halka dil labaad baa ka dhashay dilka saddexaad dilka weerarka la qaado mase qof aad ku jahaaday oo kale mase qof maartay gaal adiga aad dishay oo kale mase gaal qof muslim dilay oo kale waa dil saddexaad dilka afraad waxa aan ku sheegay dilka la diray mase diraha mase la adeegsadaha dilka sidaas ayuu kala bahorta haddaba waxana qoseeya dilka la diray baa caawna qosay inaan ka hadalno dilka la diraha horta ninka meesha ka muuqda adeerkiisiin waa ninka marxuumka dilay maadaama keligiisu dilinoo maartay gacan meesha ku jirtay oo rag kale ay ku wada shaqeeyaan si ninka loo dili lahaa horta ninka uu dhintay Ilaahay u naxariisto horta dunida markay dawladda shaqeynayaan mase haddii askari noqoto mase haddii dawladda shaqeynayaan dawladda shaqeynayso askarteeda mase dadka dagaalama mase dagaalyahanada mase askarta mase taliyaasha way ka ilaaliyaan mase waa laga ilaaliyaa nin balwad leh dawladda waa laga ilaaliyaa askarta dhahdooda waa laga ilaaliyaa nin balwad leh xeerarka qaar mase dawladaha qaar dunida waxay u samaysay askariga waa inuu daroogo isticmaali karaa maalinku askarta fasax ka yahay mase maalinku qofka fasax ku jiro inuu daroogo isticmaali karo marba hadduu shaqadiisa ku dhex jiro oo dawladda u shaqeynayo daroogadu waa ka mamnuuc dunida markii loo fiirsho aan u nimaano Soomaaliya maanta meesha aynu joogno waa Soomaaliya dilka meeshu ka dhacayna waa Soomaaliya in qof la dilo mase in dal la dilo dilka wax cusub ma Soomaaliya kuma cusbo laakiin wax ku cusub dilka marxuumka la dilay waxa ku cusub afar shay baa ku cusub kow ninkii loo baahanaa ninka marxuumka uu dilay ninkii loo baahnaa inuu dhiiggiisa badbaadiyo hantidiisa u badbaadiyo cirdigiisa u badbaadiyo sharafkiisa u badbaadiyo ninkii la rabay ayaa maanta nafta dhaafiyo godku ugu jira waa midda koowaad
هذا هو عسكري الربعين عنك إيرانيو بما أنت مرحوب مو حياة الدلي وما دد كوات ما دد لبعد دولة وحي السركال كدكتي مسا يودي بتي إن الشعب كاس إلالين يودي بتي دad laaluush la siin karo la gadan karo kow dadkan waxay isku raaceen ninkan in ay dilaan wilibna ay ku dilaan waxa la yiraahdo tamanan qaliilan adduunyo yar mase lacag yar bay ninkan maanta naftiisa ku dhaafeen ayna ku dileen tan saddexaad oo meesha ka cusub waxa ka mid ah in aysan dawladda aysan garanin mase aysan fahmin in uu dawladda ka mid yahay nin laaluush qaata ah oo shacabka sidii rabo u geli kara oo wixii uu rabo ka samaysan karo inay maanta dawladda ay u dhiibtayna maartay way ku cusubtaa tan afaraad oo ku cusub waxa ka mid ah qofka in isku halayn مسمارتي فالك مركو جليو اسكو حلين مسكو داع انو فالكا اسميو إنو يكو أصبته مقالكا waxaan ugu magac daray falkaas lagu hortagi kara falka ko horta waxa lagu hortagi kara askariga masninka muwaadinka markuu dambi galo shuruuc xadidayso masa iqaab ninkaas haduu mutaysto qofka ka dambeeyo inuu dambigaas ku dhici karin in uu leeyahay horta qofku inuu leeyahay tusaale askariga dunida markii loo fiirsho qofka askariga ah hadii lagu arko wax balwada iska dhaaf wax diray meel noo dhig balwad askariga shaqada ku jira hadii lagu arko balwad lagu helo qofka meelaha qaar wuxuu mutaysanayaa saddex iqaabood kow in la saaro galaha lacageed oo ka bixi karin saddex in askarta mase ciidanku ku dhex jiro in laga ruqseeyo afar inay shacabka jooga inay kalsoonida kala laabtaan oo ninkaasi uu noqdo nin shacab ah oo maartay ninka ciidanka laga saaro askariga hadii uu nin mukhadaraad haduu uu helo uu yahay mukhadaraad hadii lagu helo saddexdaasi iqaabood dunida askarta way u dhaqmaan Soomaaliya maan qof ba qof dilay ma jirto xuquuq xadidayso mase xaq xadidaya ninkaani haduu dambigaasi uu ku dhaco loo geysan karo horta ma jiro sideed qof in ay ku heshiyaan inay hal qof dilaan oo hadana dilkiisa ay ku qaateen tamanan qaliilan wax yar lacag ku qaateen oo ay maanta dhamaantooda qaarna dil ku mutaysteen qaarna xabsiyo 10 sano iyo ka badan ku mutaysteen oo maanta wixii ninkaas ay u dileen ay ahaayeen wax yar oo maanta intay cunaan dunida aysan ku raaxaysanin maanta la soo qabtay rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay masdiinta islaamka waxay noo sheegaysaa qofkii qof muslima xaq daro ku dila si kasto isku qariyo ma qarsamo mar banaanku waa soo baxaya hadda meeshan maxkamadda waxay soo saartay nimanka qaar kamid ah in la dilo qaar kamid ah in maartay حبس اللي هو حكومي حبس اللي جاي خلافدي الخطاب اللي جيسي ماشي محكمتنا ولا شيء جاي حديث هي سالين وحكو جرتا ده هي الخطاب اللي جيسي انت دبعت السان او كلمتين علي رجي سيفت اللي ورا ما دميي او اصحابتي ku qabsadeen maxaad dadka maxaad u laysay oo ku yiri حتى دتك حريرهن دغن مس دتك magaalada degan dhan haday isku raaceen u dhahay in ninkaas idila haday isku raac ilaahayeen wallahi ilhawaan dili laha maasha maxaa lagu arkaya nimankan ninka jaab qaaday ninka ballanshay nimanka soo wacay
nimanka lacagta bixiyey nimanka baarku u qaaday nimanka meeshi geey nimanka gabagood isku fikri ahayn sidaasi daraadeed diinta islaamka waxay noo sheegaysaa qofkii qof muslima xaqdaro ku dilo ilaahayo 100 qof ba ha ahaadee in tiirka la wada geeyo diinta islaamkana farayso halka waxaan ka arkaynaa waxa la yiraahdo ya wax nimanka lagu xukumay waxa la yiraahdo in qayb kamada mase qaar kamada dadka maxkamadda xukuntay qaar kamada in la baal hooftay sidii maxkamadda mase diinta islaamka ugu tala gashay in aan loo marsiinin oo qaab kale loo maray ba halka ka muuqata tan labaad oo qofka inuu qof dilo waliba Soomaaliya markii la joogo si ku dhac qofku u dilo maxaa keenaya ayadana waxa keenaya halkaan arrin qofka wuxuu aaminsan yahay qabiilku uu ka tirsan yahay inuu badin yahay xitaa qofkan hadduu dilo in laga bixinayo waxa la yiraahdo magdhow masadhiig waxa la yiraahdo in laga bixinayo og yahay sidaasi daraadeed qasab waxa ku ah inuu lacagta qaato wixii loo diray inuu sameeyo waa mid arrinka saddexaad oo qofka inuu wax dilo si ku dhac waliba u geysanayso waxa kamid ah waxa la yiraahdo qabiilad mas qabiil dheh waxa la yiraahdo qof inuu dilo waa ku dhac inuu ku dhacdo mas uu ku dhaco taasa keenayso tan afaraad inuu qof dilo waliba si maartay jees ha u dilo oo waliba si ku dhac u dilo waxa keenaya Soomaalida maanta dhaxdeeda waxa lagu bartay waxa la yiraahdo laandheera ayaan ahay waa koow tan shanaad ugu dambaysa inuu qofka qof dilo waliba si arxan dara qofka u dilo oo waliba ku dhac u dilo waxa keenaya tan shanaad odayaal dhaqameedka Soomaaliya intii odayaal dhaqameedka ay joogaan ha ka sugunina inay nabad ka dhacdo tan lixaad oo qofka qof in uu dilo waliba si kama aan ku dhahay si maartay asagoo dhiirin qofka ku dhiirto in uu dilo ugu dhiirto waxa kamid ah qofka koow inuu cabsan yahay waa nin cabsan u yahay oo balwada ka dharkay oo nin maartay balwad isticmaalay waa inuu yahay dunida masa dawlad way ka mamnuuc tahay san hore idinku sheegay askarta dhaxdooda way ka mamnuuc tahay qof balwad la in dawladda lagu askarta u ka mad ahaado way ka mamnuuc tahay sidaas daraadeed nimankaanay koow horto inay balwad lahaayeen ayagoo balwad leeyihiin ee qofkaasi si kama u dileen oo sidaas ay naftu ku dhaafiyeen laakiin arrinta in la isweydiiyo u baahan waxay tahay ragga hadda gacanta lagu haayo waxa ka maqan ninkii ugu weynaa arrinta fanqareynay lacagta ku bixinayay oo in ninkaasay la dilay ka shaqeynayay qadku uu ka maqan yahay ma joogo dadka xukunku ma jiro xaguu ku maqan yahay hadaba ninkaas ilaa hadda lama shaacin meeshuu joogo laakiin sababta ninkaas hadduu dawlado kala jiro adduunka dawladaha way isxariiriyaan qofkii qof dambi ka galo meel kastuu joogo waa la keenaa tusaale widaadkii Nairobi joogi jiray oo dara maxkamadda la saaray oo afar haaslaha ahaa intuu qaylinayay Nairobi saa laga soo waday saa halkaa lagu keenay waa in la isweydiiyaa ninkaan haddii dawladda kale hadduu meel ka joogo waan hubaa dawlad inay keeni kartay tiina lagama falgalay xitaa maxkamadda intay warqad soo saarto dawladda u geyso way dhix kartaa ninkaas dambigaas uu galay waa in la keenaa dawladda amarayso ra'iisul wasaaraha madaxweynaha wasaaradda arrimaha dibadda
وعمريسا ولا كينيا سيك مالك استوجو ولا كين لها كين لما سمعين أنا موغالك كل ديرانين شنطة أرن حدي سوماليا لغا قبان قف كستو مانتا نبدو كو جيفو غورغي سجيفو بلايل أنا كسو سعطو مموغو مسكادها كو هايستو كو أرن كالليرا نبدونا دا مسعوديات نخميتك وإن خدك لغا سارا كو oo dawladdu go'aan adag ay ka gaartaa arrinka labaad askarta mas dawladda dhaxdeeda waa in laga mamnuuca qof balwad isticmaalaya waa in laga mamnuuca waa maadada labaad maadada saddexaad qofka askarta loo dhiibaya mas ninka dawladdu u shaqeynaya waa inuu noqdaa nin waxa dawladdu siinayso nin ku qanacsan waa inuu noqdaa oo nin laalush u beeri kara soo noqon arrinka saddexaad askariga markuu dambi ku dhaco mase dambi uu sameeyo mase dambiga lagu helo waa in ay jirtaa xuquuq mase maartay sharci ninka xukumayo uu ka baqayo waa inuu leeyahay وجرتو تن عفرات عسكري وإنو ليه هاي تلس مال لغا حكومه أو لغو ليه حساب تيمي كرو وإنو ليه أيضا ما جرتو تن شنات قفك مركي لسواق بطب محاكمة حكومته أو محاكمة حكوم كردو وإن markii maxkamaddu ku dhawaaqayso shuruucda dhawaaqida waa in lagu daraa maxkamadda waxa ay ku dhawaaqdo in laga laaban karin oo si toos loo fuliyo taasna ma jirto maantay Soomaaliya markii la joogo dadka dhammaan dadka waxa dilaya boqolkiiba 40 waa askarta dawladda dabliga ninka askariga loo baahanaa qofka shacabka inuu dhiigiisa u ilaaliyo hantiis u badbaadiyo loo baahanaa waa ninkii wax dilay waa ninkaas haddana qofka inuu wax dilo maxaa keenaya askariga balwad ayuu leeyahay nin balwadana balwada haddii ay uu cabo waqti yar bay jirkiisa ku jiraysaa haddii balwadaasi ay ka baxdo wuxuu u baahan yahay balwadiga u baahan yahay inuu mar labaad u helo قصب ويبلودا العقد اللي جو قدله وينو حلا العقد يلقى قاضي مرك نينك حكومة مثلا نينك تلس كأها لقى قاضي مايا وحا لقى قاضي الشعب كي ودد مري بجاجله عسيله مساكين كإسلام ودد جرك هذا في اليدو قدرتك قدا حوق له قاضية حتى ونن عبسنا سدي سبب مير ملك نن عبسن مير ملك حديث بعدها يقفك حدو عبسيها يمير كيس مسكاس اما قنتهاي صلاة دي ساتا لغا معك بلا يعني نينكاس صلاة قفك إنو صلاة دكتور إبادة سمايو محا كيني قفك وإنو مارتي مسكاه دي سمير كيس وإنو تشوغا تاسي أوكيدغن إنما الأعمال بالنيات قفك وإنو نيلي هاي قلب ليها صلاة إنو وحقود تاقيا إنا يهين صلاة إنا يهين وإنو آمسيها لكن أسكري عبسن أنتو كسر بحرد كسر معي أنتو ما حصاد دوبتي أو صلاة دكون إبادة اللي قوليها إلهي رسول كيسك دفري أو دين لهين أو كافرة أو بلود كستو عبي أيا دولة دي انتي نوع قلبا يسي هوب لودي ويوحاليري إنو وأنا الشعب كالدفاع دين قرما الشعب الدفاع دادك إيغا ضماني ور أصل أيغا دادك دليا أنا موغالك كو ديرانين وإن لغي إلاليا دولة دحدادا نن لالوش قادن كرا ور أسكري $100 لسي قصب وإنو لالوش وإنو غاتا قصب ويتاس ويسكو محبو نمانك منافقين تامالها دوبتا سود كو حرين هايو قولكو دو كتيرو واديس هايستو وحبك من إسلاما هر هايستو على قف ما يكونو دورو غاتا
iridda hadduu ka baxana muxuu leeyahay askariga ilaalinahay aaw askari bartokolka intuu ka baxay kelis ma socon karo war ninkii lagu jiifay ninka keliya ammaankan lagu jiifay oo lagu nasan lahaa lagu jiifay kow hadduu salaadii ka tegay hadduu balwad isticmaalay hadduu laalush qaato noqday war hagaan ku noolaynaa marka yaa way qofka ammaankaana sugayo war qofkaas waayo waa qarrabanahay dawladda aad bay u qarraban tahay waa istoosiya ilaahayna laga cabsado ilaahay ka cabsado bilis muuqaalkan hadduu ku soo gaaray سن يلا سبسكرايب يقول صار أدبضوا مع السنتهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.